ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ayaa maanta u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysisay inay ku kaleeriyaan dibadbaxayaal Iiraan taageersan oo xalay oo dhan ku sugnaa iridaha safaaradda. Kumnaan bannaanbaxayaal oo taageersan maleeshooyinka hubeysan ee Ciraaq ayaa ku xoomay safaaradda iyagoo ka careysan duqeymo Mareykanku fuliyo oo lagu dilay 25 ka mid ah dagaalyahanada taageersan Iiraan. dibadbaxayaasha ayaa ka gudbay barta laga kantaroolo safaaradda oo ku dhex taala cagaaran ee amnigiisa aadka loo ilaaliyo si ay u gaaraan safaaradda. dibadbaxayaasha ayaa dibadda safaaradda ka dhistay qiyaastii 50 taandhe iyo musqulo gaar ah, waxaana ay ku dhawaaqeen inay ku sugnaan doonaan halkaas ilaa ciidamada Mareykanku ay ka baxayaan Ciraaq. dibadbaxayaasha ayaa maanta ku dhawaaday darbiga kaliya u dhaxeeya ayaga iyo dhismaha weyn ee safaaradda, waxaana ay gubeen calanka Mareykanka iyagoo u jawaabaya ciidamada amnigu waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysisay, waxaana lagu soo waramayaa inay dhowr qof ku dhaawacmeen. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Iiraan inay mas'uul ka tahay dibadbaxayaasha weerarka ku ah safaaradda, waxaana ay ku cadaadisay dowladda Ciraaq inay sare u qaaddo ciidamada sugaya amniga safaaradda. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa Talaadada sheegtay in ciidamo 750 askari oo dheeraad ah ay u dirayso bariga dhexe. waa Suban Maxamed Jaamac Buutaan, VOS News, Hargeysa.